bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaanba ku soo dhowaada barnaamijka cawayska oo hadahan oo kale aad ka daawataan shaashada telefishinka qaranka barnaamijka cawayska waxaynu ku soo qaadan doonaa qodobo aad u xiiso badan oo barnaamijka gudihiisa aad kaga dheehan doontaan balse aan ku furo hees oo qaadaya axmed seki heestaasi oo erayadeeda ka mid ahaayeen haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadi lahaa dembiga waa qiran lahaa waxaan filayaa amaba aad ka wada dhigateen baan filaya in rag iyo haweenka marka la eego qaybaha cafiska in dumarku ay kaga badan yihiin ragga balse aynu wada daawanna heestaasi qadarin baad mudato qiimadigu leedahay qadarin baad mudato qiimadigu leedahay ayeshe dhibkaan qarsaday sirtaydii qaraxdayo ayeshe dhibkaan qarsaday sirtaydii qaraxdayo ana qalad ka gale haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa dembiga waan qiran lahaa ana qalad ka gale haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa dembiga waan qiran lahaa haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa dembiga waan qiran lahaa anigu waan qiran lahay qalbigaada hoyuto qalbiga mida tahay qalbigaada hoyuto qalbiga mida tahay ana qooma miyocay dibnaha isqaninay ana qooma miyocil dibnaha isqaninay qalanjooy ralli noqo haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa dembiga waan qiran lahaa qalanjooy ralli noqo haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa dembiga waan qiran lahaa haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa maca waan qiran lahaa anigu waan qiranayaa maca waan qiranayaa haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa dembiga waan qiran lahaa xabiibi waan qiran lahaa anigu macaney anigu dembiga waan qiran lahaa intaas ayaan kaga soo noqono fanaankaasi codka macaan ee axmed seki iyo heestaasi haddaan qiran lahaa maxkamadda caashaqa oo isagoo uu samaystay ambaba abwaanka ereyada lahaa waxaynu soo qaban doonaa dalkani somalilan aynu ku noolnahay waxaa jira qisas badan oo aynu maqli jirnay oo ay ka mid tahay
qisaska dhegdheer haddaba dunidan aynu ku noolnahay qisooyin kuwa ka daran ayaa soo maray yaraannimo waxaan ku maqli jiray dhegdheer dhimatoo dhulkii waa nabad laakiin adduunyada sida aan horeba uga dhawaajiyey qisooyin kuwaasi ka daran ayaa ka dhacay balse waxaan soo qaban doonaa haweenaydii dunidani ugu axmaqsaneyd amaba ugu darnayd xogta daasoon kurdi ayaa inoo soo diyaariyey barnaamijkaasi boqoradii dad qalatada ahayd Elizabeth Bathory waxaa loo haystaa inay ahayd haweenaydii ugu sharka badnayd taariikhda waxaana aynu haatan daaha ka rogaynaa xaqiiqo iyo khiyaali wixii ay ahayd qisadeedii naxdintu ku lamaanayd laakiin shayga ay ku caanbaxday ee ah inay dhiigga dadka cabbi jirtay oo hororad ahayd waxa keliya oo kaga horreeyey awowgeedii aabbe oo ahaa qofkii ugu caansanaa cabbitaanka dhiigga aadamaha Elizabeth Bathory waxay dhalatay sanadkii 1560 iyadoo ilaahay ku manaystay qurux ay golojoogga ku lahayd hanti fara badan iyo tacliin wanaagsan oo ay baratay bulshada dhexdeedana ay yaraanteedii magac wanaagsan ku lahaan jirtay iyadoo dhanka kalena ka tirsanayd qoyskii reer Bathory ee soo xukumayay muddada dheer mandaqadii ismaamulka gaarka ah haysatay ee Transylvania oo ka tirsanayd dalka haatan loo yaqaano Hungary laakiin dhanka kale waxaa qoyskooda ku gadaanaa ceebo iyo falal bahalnimo kuwaas oo ka soo bilaabanayay dii awowgeed oo la aaminsan yahay inuu ahaa dhiigyacabkii ugu xumaa ee ku mamay dhiigga dadka xilli uu adeerkeedna aaminsanaa inuu addoon u yahay shaydaanka iyadoo laga yaabo in arrimahaasi ahaayeen kuwii ku kalifay markii dambe in gabadhan aynu ka hadlayno ee Elizabeth Bathory ay raacdo jid murugooyin iyo magaxumo ku tilmaanaa isla markaana ay disho oo dhiigga ka cabto boqolaal ruux oo u badnaa hablihii jaariyadaha u ahaan jiray bilowgii nolosheedaba waxay guursatay inankii ay la dhacsanayd oo ka tirsanaa dabaqada hoose ee ummaddii waddankaasi kaasoo ay ilmo keliya u dhashay iyadoo Elizabeth goor dambe dhiigga ka cabtay ninkeedii kadibna hilibkiisii ku qalaysiisay oo u jarjartay eedii ay lahaan jirtay ilmihii yaraa ay u dhashay oo inan ahaana oo isna saaxadda ka qarsoomay iyadoo ninkeedii ay qalatay uu ahaa qofkii ugu horreeyey ee ogaada farsamooyinka ay dhiigga kaga cabto dadka ka hor intii aanay dilin iyadoo hablaha jaariyadaha ah ee ka dhashay qoysaska faqiirka ah halbowlaha jari jirtay markay dhiigga ka fuuqsatana baktigooda si qarsoodiya ugu soo qobi jirtay eyda dadcunka ah ee ay rabaysatay waxaana hawsha inteeda badan u qaban jiray ninkii adeegaha u ahaa ee laangadhaha ahaa iyo haweenaydii sharka badnayd ee Anna Daravolia Elizabeth Bathory waxay bahalnimadeedu gaarsiisay heer ay dhiigga u isticmaasho kariim ahaan oo ay wejiga ku dhaashato markii dambena waxay ku sii kordhisay inay guud ahaanba ku maydhato dhiigga oo hablaha yaryar ee adeegayaasha ah ku dhigmirato saxanka tuushkeeda ee ay ku dabaalanayso markii ay hablo badan oo waddanka u dhashay la waayay ayaa dhibaatadii cadaawadii bahalnimadii iyo dadqalatinimadii Elizabeth Bathory waxay isaga baxday afarta jiho goor dambana mid ka mid ahaa baadariyada waddankaasi ayaa xukuumaddii sare ee dalka Hungary u bandhigay waxaa ka socda qasriga gobolka Transylvania iyo sida ay wax u jiraan waxaana la bilaabay baaritaan furan sanadkii 1610 bishii December ee sanadkaana waxaa la qabtay Elizabeth iyo afar qof oo kale oo ku dhowaa oo lagu tuhunsanaa inay dambiga la wadaagay baaritaankaana waxaa lagu ogaaday inay dambiilayaal yihiin saddex ka mid ah shantoodii ayaa dildalaad lagu xukumay mid ka mid ahna xabsi daa'im hase yeeshee waxaa go'aanka maxkamadda laga daayay Elizabeth Bathory maadaama ay qoyska mandaqada xukumo ka tirsanayd laakiin waxaa lagu xiray god aan raxmad lahayn oo dhulka hoostiisa ah halkaas oo ay sharkeeda iskaga hayeen tan iyo intii ay ka soo baxaysay neefteedii ugu dambeysay oo ay ka dhimanaysay sanadkii 1614 shakhsiyaddii Elizabeth waxaa laga reebay sheekooyin badan iyadoo sidoo kalena laga sameeyey filimaan kala duwan oo u badan kuwa aynu u naqaano horarka ama masaasatu dimaa waa filayaa qisadaasi gaaban ee cajiibka ah ee wakhti hore dhacday balse ilaa hadda si kale loo dhigay oo aanay hadda dunida aanay ka dhicin sistamada caynkaas oo kale amaba qaabkaasi oo dhaqankaasi gabadhaasi aad ka wada dhugateen aan soo qabto xubintaasi inoogu xigta waxaynu qani ku nahay luuqadda amaba afka suugaanta ama af Soomaaliga waxaan soo qaban doonaa abwaan da'yar Cabdiqani Mandela oo reer Soomaaliland kuna dhaqan gaar ahaan gobolka Awdal gabayga hubaal waa gabay uu ka hadlayo nolosha iyo sida qof kastaba uu meel show doonayo isagu uu isku gaarsiin karo bal Cabdiqani aan soo qabto nolosha
nolosha waad hagi kartaa nolosha waad hanan kartaa nolosha waad huri kartaa halyey baad noqon kartaa hubaal waad gaaraysaa waxaad hiigsan lahayd haddaad ku dadaasho uun haddaad ku haraado uun haddaad ku harbeesho uun haddaad u hayaanto uun haddaad ku hawaawidoon haddaad ku halowdo uun hamiga kugu weyn dartii hubaal waad gaaraysaa waxaad hiigsan lahayd haddaad bal aqoonsatoon inaad tahay lama huraan naftiisa hagaajin karaa adduunyada hiigsan karaa halyeynimo sheegan karaa hankiisu ballaasan yahay haddaad bal yaqiinsatoon hubaal waad gaaraysaa waxaad hiigsan lahayd nolosha waad hegi kartaa nolosha waad hanan kartaa nolosha waad huri kartaa laakiin marka la nolosha saasaad noqonaysaa oo waxaad noqonaysaa nolol saasi oo saasaad samaynaya dee waxbaa raadad la raacay leedahay markaa qofka waa in isagu dhiirado isbaro adigoo hamile isbeddel adigoo han raba odhaa hadal iyo dareen hindise ma dhaqaajiyee hawl iyo fikir weyn la imo haddaad istaqaan adigu og tahay kartid iyo hamigu inaad qaban karta haddadan heer iyo waxaad gaaraysaa halkuu qorshahaagu yahay nolosha aad hiigsatiyo nolosha aad hiratiyo nolosha aad haybisiyo nolosha ka heshaad rabtaa waxay hawl kaa rabtiyo halkanka lagu helo ogow nolosha haydaarta iyo dhibtiyo hagardaama taal habkaad uga baydhasiyo horteed bara sida u xala nolosha hamigeli u haba nolosha hanuyeel u hira nolosha hadal bara u hadha nolosha heerkay gidiyo halkay mudan tahay u gur nolosha haybadeeda gudo nolosha hilinkeeda garo nolosha hibadeeda gunud nolosha hababkeeda guud sidaad u hogaamin layd qorshaha hagilaa abuur nolosha waad hagi kartaa nolosha waad hanan kartaa nolosha waad huri kartaa qaab baa jira lagu hormaro qorshaa jira lagu hamiyo qof baa jira lagu hurto qudhaada hankeeda saba qaab baa jira lagu hantiyo qiimaha adu heelanayd qasdiyo loo howlgaliyo qodobo waxaa jira hirgala nolosha waxa haga qorshaha ku dhisan hindisiya go'aan nolosha waad hagi kartaa nolosha waad hanan kartaa nolosha waad huri kartaa halyey baad noqon kartaa waa tahay waan filayaa in badan oo idinka mid ah inay awooddaasi uu ka hadlayo cabdiqani mandeela ay dhammaantiin idinku jirto meel kastoo aad doonayso inaad gaadho waad gaadhi kartaa qof kastoo aad doonayso inaad noqotona waad noqon kartaa balse waxay ku xidhan tahay inta awooddaada amaba kalsoonnida naftaada ay ku jirto cabdiqani aad buu u mahadsan yahay waxaan soo qaban doonaa xubintaasi inoogu xigta waxaynu ku wada nasan doonaa fanaankii weynaa xasan aadan samatar iyo heestii hee ma ka hor dhaca mise idinka ayaan idiin daayaa
kulololya waan saliicaya inta waxaan hayuun dumarku laakimoodaba tanay ligeedayo iga luugsatay alibta waxaan hayuun dumarku laakimoodaba tanay ligeedayo iga luugsatay صوت عيلي لا سيمي إلا يابن مايو ميا كلام يا ميا لهينا يا صوت عيلي لا سيمي إلا يابن مايو haddii laysuuday labadayada talo ma laalantiin dad markayga jecel baa inta hoosta kaga lamaani haddii laysuuday labadayada talo ma laalantiin dad markayga jecel baa inta hoosta kaga lamaani anuu lahan abaar ugu lumay anuu lahan abaar ugu lumay ilooyaami lahan abaar ugu lumay anuu lahan abaar ugu lumay ilooyaani wada dhugata ayaan filayaa xasan aadan samatar waxaan soo qaban doonaa qiso kaloo idinla wadaagayo aan jecelahay barnaamijka caweyska telefishinka qaranka Soomaaliland inaad ku daawataan waa qisadii ugu dambeysay amaba dhacdooyinkii noqday aadka uga caanka noqday wadankaasi Hindiya waxayna ogsoonahay jacaylku inaanu lahayn amaba xad aanu isagu lahayn jacaylka waa loo dhintaa waa loo dhaawacmaa naf badan ayaa wax ku noqota waxaan soo qaban doonaa qisadani waxay ka noqotay wadankaasi Hindiya mid la wada og yahay dad badan ay ku baraarugeen lamaanihii iscalmaday balse aan jacayl isku guursaday jacaylka qalbiga dalka Hindiya waxaa ku badan in raggu argoosi ahaan gabadha ay aysid wajiga kaga shubaan kadib marka ay is afgaran waayaan ama ay isku dhacaan waxaa lagu qiyaasaa ilaa 1,000 fal dambiyeed oo noocan ah inay ka dhacaan wadanka Hindiya sanad kasta hablaha waxa caado u ah inay niyad jabaan ama ay nolosha ka qoostaan Lalita Benes waa gabadh 26 jir ah oo u dhalatay gobolka Uttar Pradesh ee dalka Hindiya sanadkii 2012 ayay maalin soo booqatay arooskeen adeerkeed oo halkaasi ka dhacayay intii ay arooska joogtay ayay walaalkeed iyo wiil ay ilmaadeer ahaayeen islaayeen waxayna halkaasi ka bilowday dhexdhexaadin ay ku dhexdhexaadinayso wiilka ay walaalaha ahaayeen iyo wiilkan ay ilmaadeerkayiin ee dagaal ku dhex maray waxayna mid walba ku abaal marisay hal dhirbaaxo wiilka ay ilmaadeerka ahaayeen ayaa waxa uu ka samri waayay dhirbaaxadii waxaanu si gaadma ah wajiga uga shubay aysid Lalita oo uu arooskeedu ka dhinaa xilliga 5 bilood oo kaliya waxa isrogay mustaqbalkeedii oo madoobaday waxay gashay 17 qalin oo wajiga ah
haddana laguma guulaysan in sideedii hore lagu celiyo. dhibaatadu kamay suulin, qoyskii ay filaysana muu suuro gelin inuu dhismo, waxayna ka quusatay nolosha gebi ahaanteedba. laliita ayaa maalin maalmaha ka mid ah nambar si qaldan u garaacday kadib markii ay aragtay inaanu ahayn kay rabtay ayay dhigtay. wiilkii nambarka lahaa oo lagu magacaabo siin ayaa 15 cisho kadib ku soo celiyay nambarkii laliita, wayna ka qabatay oo ay sheeko wadaageen. sing waxa uu yidhi codkeeda iyo dabiicadeeda ayay cajabiyey, sidaa daraadeed maalin kasta waan la hadli jiray oo aan la sheekaysan jiray. intii ay sheekadu u socotay ayay laliita u sheegtay in ay wejiga in ku leedahay oo ay sir lagaga shubay. wuxuuse wiilku ku jawaabay, lamaanayaal badan ayaa iska caashaqa muuqaalka wejiga, jacaylkooduna aanu raasamaal yeelan oo uu reerkoodu sidaasi ku burburaa. laakiinse anigu waxa aan jacayl u qabaa ruuxdaada, codkaaga iyo weliba dabeecadaada. arooskan laliita iyo sing waxaa kasoo qayb galay mid ka mid a agtarada ku caansan wadanka hindiya, Vivek Oberoi, waxaanu ku abaalmariyey oo uu siiyey aqal iyo gaadhi. arooskanna wuxuu noqday mid ka mid a aroosyadii ugu saameynta badnaa wadanka hindiya. heestii ugu dambeysay barnaamijka ayaan soo qaban doonaa. najiib alfa ayaan idinkaga tegi doonaa ee daawasho wanaagsan. jacayl garan waayey kii sugay, haddana ka gadooday kuu rabay, isana u garabin kii helay, waa laga gaaraygareen. jacayl garan waayey kii sugay, haddana ka gadooday kuu rabay, isana u garabin kii helay, waa laga gaaraygareen. dareen gulo waayey waa badan, haddana guran waayey xiisaha, markuu la gaboobay waayaha, waa laga gaaraygareen. dareen gulo waayey waa badan, haddana guran waayey xiisaha, markuu la gaboobay waayaha, waa laga gaaraygareen. go'aan laga gaadho yaa garan, dadyow laga gaadho yaa garan, jacayl laga gaadho yaa garan. go'aan laga gaadho yaa garan, dadyow laga gaadho yaa garan, jacayl laga gaadho yaa garan. gala qalbigu nugul haddana u reeyaqa maangudan misana ku gardaadsha meel maran ru'aan laga gaadhoyagaan jacayl gafka gala qalbigu nugul haddana u reeyaqa maangudan misana ku gardaadsha meel maran ru'aan laga gaadhoyagaan عشق قوري تاكتي ودقو هدانا قوغشيسي عاسي مكوكا قبض حلكيسي قوان لقا قرب يا قران عشق قوري تاكتي ودقو هدانا قوغشيسي عاسي مكوكا قبض حلكيسي قوان لقا قرب يا قران laga gaaro ya garan dadyow laga gaaro ya garan jacayl laga gaaro ya garan
go-aan laga gaaro yaa garan dadyow laga gaaro yaa garan jacayl laga gaaro yaa garan go-aan laga gaar go-aan laga gaaro yaa garan dadyow laga gaaro yaa garan jacayl laga gaaro yaa garan dawadeelintaasi waxay ku soo gabagabeynayaa barnaamijka telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan ee cawayska waa habeyntii iyo iskudabaridkii jimcaale cali ibraahim muuqaalkaasi quruxda badan waa maxamed soomaali xamso munir iyo akhyaarta kale igala qayb qaadatay anigoo maxamed fuusiyaana waa idinla socodsiinaya intaynu ku kulmi doona barnaamijkan oo kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu you.